السلام عليكم akhyaarta meel walba joogtiin oo mar kale muuqaal cusub aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo wax walba oo ku cusub suuqa kala iibsiga Sebastian laacibka la yiraahdo uu ciyaar Fenerbahce waxa ku dagaalamaya kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub sida Arsenal, United, Inter iyo AC Milan. Liverpool oo laacib la yiraahdo Varane ka soo qaadanaysa Porto Ter Stegen oo markaan Sacuudiga ku wajahnaa kara Rabiot oo Barca ayuu ku biirayaa mise Manchester kooxaha ugu waaweyn Yurubna Victor Osimhen ayay ku dagaalamayaan Giroud ayaa ku wajahan dhanka iyo Mareykanka Bastoni waxa isku haysta United iyo Chelsea Arsenal oo laacib lagu magacaabo Maqayil ka doonaysa kooxda kubadda cagta Barcelona laacibka kooxda Inter Dumfries waxa raadinaysa Manchester United haddii aan muuqaalka channel like garay kana subscribe noo saar haddii aynu ku bilowno maanta waxaa jira macaawo la ciyaari doona kulan ka tirsan tartanka FA Cup-ka Manchester City ayaa booqanaysa kooxda yar ee Luton Town kulan FA Cup-ka caawa kulankan wuxuu soo dhici doonaa 5 saac oo habeenimo waana kulan Citizens-ka ay doonayaan inay u sii halgamaan ku difaacashada koobka FA Cup-ka maadaama xilli ciyaareedka hore ay qaadeen koobkan iyagu xilli ciyaareedkan waxay dareenayaan saddexleydii hore ee u qaadeen inay mar kale dib u sameeyaan oo historic cusub diiwaanka isku geliyaan marka City caawa Luton Town ay la ciyaarayaan kulan xiiso badan oo soo dhici doona xilliga geeska Afrika saacadu markay tahay 5 saac caawa marka City caawa kooxda Luton Town ay la balansan tahay markan waxaan eeganaa wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga maanta update badan ayaa jira kooxda Fenerbahce laacibkeeda Sebastian lagu magacaabo waliba waxa la yiraahdaa ninka Sebastian Sabniski ayaa la yiraahdaa waxa dareenaya kooxo waaweyn oo qaaradda Yurub Talyaaniga laba kooxood oo ugu waaweyn waliba labada Milan ayaa laacibkan isku haysta lagu daray saddex kooxood oo Premier League Tottenham Hotspur Manchester United iyo Arsenal oo United iyo Arsenal ay sheekadu ku koobneed laakiin ninka bandhigiisa waxa markaan soo jiitaba kooxo kale oo waaweyn Inter Milan macalinkooda diyaar ay u yahay ayaa la leeyahay ninkan inuu soo qaado wakiil ayana u dirsadeen dhanka iyo Turkiga sida ninkan ku helaan United iyo Arsenalna ninka shayda ay kala socdaan ninka la yiraahdo Sebastian marka dagaalka suuqa ciyaartoy badan ayaa la isku hayaa dhinaca kale kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa markaan u dhaqaaqday laacibka lagu magacaabo Varane laacibkan la yiraahdo Varane wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta Porto waana laacib qadka dhexe ciyaara ninkan ayaa bandhig cajiib ah soo bandhigay kulankii Champions League ee kooxda kubadda cagta ee Porto ay garaaceen Arsenal bandhig cajiib ayuu kulankaas muujiyay Liverpool dib ayay markaan ugu soo noqdeen raadinta laacibka lagu magacaabo Alan Varane marka Liverpool haatan dib ayay Porto uga jafaysaa xiisihii u qabeen laacibkan lagu magacaabo Varane marka Liverpool haatan waxay diyaarinayaan inay ninkan wada hadallo la bilaabaan sidii ay u keeni lahaayeen garoonka caanka ee Anfield Road maadaama ninka bandhigiisa uu yahay mid heer sare ah xilli ciyaareedkan dhinaca kale tan kooxaha reer England Siba United iyo Chelsea ayaa ku dagaalamaya laacibka Inter Milan ninka lagu magacaabo Alexander Bastoni ayaa ah daafacyada ugu adag qaaradda Yurub marka loo eego qaab ciyaareedkiisa kooxda Inter Milan oo ah ninka daafaca dambe maamula waana nin degan oo dheer daaficiisuna uu yahay mid cajiib ah Bastoni labadan kooxood ee shabaqooda iska furan yahay ayaa markan waxay rabaan inay meesha ka duleesho ku owdaan oo ku xiran ay daneynayaan marka ninkan in muddo ah kooxo waaweyn ayaa raadinaya laakiinse Inter Milan ayaa waxaas oo dhan diidaysay oo taagneed laacibkeena ma fasaxino meel uma direeno marka haatan Chelsea iyo Manchester United waxay markaan isku dayayaan inay laacibkan ka soo furfuraan xeendamka ay ku xiratay kooxda kubadda cagta Inter Milan marka Inter markaan dagaal adag ayaa la geliyayo labadan kooxood ayaa ninkan si aad u baadigoobaya dhinaca kale nimankii Arsenal ah markaan wuxuu dhaqaaqeen laacib daayara oo Barcelona akademiyada ka tirsan haatan loo soo dalacsiinayo qaybta waaweynka waxaana lagu magacaabaa Maqayil laacibkan ay rabaan Arsenal inay soo qaataan keenana gigada falay Emirates marka Arsenal ninkan ay baadigoobaya dhinaca kale kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa markaan tijaabinaysa mar kale inay kooxda kubadda cagta Juventus ka soo qaadayaan ninka Andre Rabiot nimanka Barcelona mar ay isku dayeen laakiin way ku fashilmeen iyaga Manchester United ayaa ninkan si aad u raadinaya laakiinse arintu mar hore ay fashilantay haatan ayaa dib loo soo cusboonaysiiyay xiisaha loo qabo Andre Rabiot markaana Barcelona ayaa diyaar u ah inay 2 sano la saxato iyo ama 3 sano maadaama Barcelona ciyaartoyda u ciyaarta qadka dhexe Frank de Jong iyo ciyaartoy badan ku jiraan lacag mushaaraad badan qaadanayaan waxay rabaan ninkan inay keensadaan mushaar iska macquulana ay siiyaan marka nimankan Barcelona yiraahdo ninkan Rabiot ay xiisanayaan markan Juventus ay rabaan inay ka soo qaadaan dhanka iyo Sacuudiga nimanka yiraahdo Al Ittihad ayaa markan istaagan lacag waaliya u soo bandhigaya Barcelona waxa la leeyahay meeshan way ka macaashi kartaayo furkii faqriga in yar oo kamid ah ayay dhigayaan maadaama
kooxaha reer Sacuudi lacag ay hayaan istaagana marka lacag waliya ay ku doonayaan kooxda Al-Ittihad ee dalka Sacuudiga waan arki doonaa wax walba oo ka soo kordhay kooxda Al-Ittihad iyo doonistooda Ter Stegen dhinaca kale taqaarada Yurub dagaal adag ayaa suuqa loogu jiraa Arsenal iyo Chelsea Paris Saint-Germain si adag ay iskugu hayaan laacibka la yiraahdo Victor Osimhen oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Napoli marka laacibkan uu ka dhaqaaqaya xil ciyaareedka markuu dhamaado kooxda Napoli Paris oo weese Mbappe Chelsea oo baahi u qabtay lambar 9 Arsenal ha ka reebin dhamaantood waxay isku hayaan ninka la yiraahdo Victor Osimhen oo kooxdiisuna ay markaa lacag 100 milyan 120 milyan ku dhow ku rabto marka waan arki doonaa umuurta Victor Osimhen halka ay ku dhamaato dhinaca kale Manchester United macalinkeeda Erik ten Hag ayaa markaan diyaar u ah laacibka Hollandeeska kooxda Manchesterna ay raadinaysay muddadii ugu dambeysay ee lagu magacaabo Dumfries inuu keeno Old Trafford ninkan ayaa laacib dambeed ka mid ka ciyaara Inter Milan oo ciyaara Dumfries ay rabaan inay soo qaataan Manchester Inter Milan laacibinteeda ayaan tan waxa laga reebilay nimanka Manchester Bastoni way ka rabaan Dumfries way ka rabaan Laartona oo liiskooda waa ku jira marka Inter Milan Manchester ayaa diiradda ku haysata marka Ten Hag haatan wuxuu diyaarinayaa la leeyahay wakiiladii ka soo dhaadhici lahayd Dumfries inuu yimaado gegada Old Trafford marka Manchester United waxay xiiseynaysaa laacibka la yiraahdo Dumfries waan arki doonaa halka uu wax ku dhamaadaan hadii muuqaalka shan wala garay kanalka subscribe noo soo gudbay